dowladda Faransiiska ayaa ku baaqday in la geeyo ciidamo beesha caalamka ka socda deegaanka Nagorno-Karabakh si ay uga qayb noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojintii dhowaan ka hirgashay deegaankaasi ee dhowaan ay dowladaha Azerbaijan iyo Armenia ku kala calaf qaadeen. Bariis ayaa ka warwarsan kaalinta Turkigu ku yeeshay xabad joojintaasi iyada oo aan wadaxaajoodkan laga soo qaybgelin kooxda Minsk Group. Ruushka ayaa qayb ka ah ciidamada ilaalinaya xabad joojinta. Ciidamada Turkiguna waxa ay gaadheen magaaladii labaad ee ay ka baxeen ciidamada Armenia. Haddaba waa maxay walaacan uu muujiyey Faransiisku? Warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Paris iyo Washington ayaa shir gudoomin jiray kooxda Minsk ee ilaalin jirtay xaaladda gobolka Nagorno-Karabakh, laakiin laguma soo casoomin heshiiskii lagu soo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhaxaloosneyd Armenia iyo Azerbaijan. Tan iyo intii xabad joojinta la saxeexay, Ruushku waxa uu kala xaajoonayay arrimahan Turkiga oo ay saaxiibo dhow yihiin Azerbaijan. Kooxda Minskna ay aad u biyadiidsan tahay. baarlamaanka Turkiga dhowaan ayuu ansixiyey inay ciidamo deegaankaasi dowladdu u dirto. qaybtii ugu horeysayna waabay gaadhay. haddaba intee ayay leegtahay saaxiibtinimada Azerbaijan iyo Turkigu, maxayna xoogga u saareen inay qayb ka noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojinta gobolkaasi? Maxamuud Carab waa wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. waad mahadsantahay walaal Cabdi Xaafid. sababta uu Turkigu u gacan siinayo dalka Azerbaijan waxa weeye xiriirka ka dhexeeya ee qowmiyadeed, dhaqameed iyo taariikheed ee u dhexeeya Turkiga iyo Azerbaijan. isagoo tix raacaya xidhiidhadaasi waxa uu halkudhig ka dhigtay laba dowladood oo hal qaran ah. Azerbaijan waxa ay hodan ku tahay saliidda, waxayna muhiim u tahay amniga, tamarta iyo marinka ugu weyn ee loo dhoofiyo saliidda iyo gaasta dalka Turkiga. sidoo kale sababaha kale ee Turkigu u taageeray Azerbaijan waxa weeye Turkigu isagoo ilaashanaya maslaxadiisa siyaasadeed iyo kuwa ganacsi iyo kuwa milatariba, waxa uu si buuxda oo aan gabasho lahayn u taageerayaa Azerbaijan. dhinaca kale, Turkigu wax xidhiidha oo diblomaasiyadeed lama laha Armenia, wuxuuna xidhay xadkiisa uu la wadaago Armenia 1993 isagoo muujinaya midnimada Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh. warbixin laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa kadib telefoon uu kula hadlay madaxda Armenia iyo Azerbaijan waxaa lagu sheegay in kooxdan Minsk ay doorkeeda ka qaadato ilaalinta xabad joojinta. Faransiisku waxa uu isku dayay inaanu u muuqan in labada kooxood ee dagaalamaysa uu dhinac taageero, laakiin waxaa qaar ka mid ah dadweynaha Faransiisku ku canaanteen in aanu taageerin Armenia. Turkiga iyo Azerbaijan iyo dalal badan ayaa aaminsan in kooxdan Minsk ay hawshan dayaceen 30 sannadood oo dhulkaasi loo aqoonsan yahay Azerbaijan ay Armenia haysatay, oo weliba ka dhaga adeegtay qaraaro badan oo qaramada midoobay ka soo saartay deegaanadaasi. xiriirka Faransiiska iyo Turkiga ayaa sii xumaanaya iyada oo Paris Ankara ku eedeysa inay dab ku sii shidayso xaaladda gobolkaasi. laakiin dadka ka faalooda arrimaha Turkiga iyo Yurub ayaa aaminsan in uu Turkigu laf dhuun gashay ku noqday Paris, iyadoo Ankara kaga saameyn badatay dalal badan oo Faransiisku ka dhex muuqan jiray. Turkiga iyo Ruushka ayaa xaalado badan oo reer Yurub looga daba fadhiisan jiray iminka iyagu ka odeeya, taasina warwar ayay gelisay dalal badan oo ku yaala Yurub.